السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن kusoo dhawaada barnaamijkeena ala oo barnaamijku halkan idinkaga soo diyaariyay anigoo injineer Daciis Maxamed Xasan. barnaamijku maanta waxa ku qaadan doona insha Allah taala call by reference and call by value. intaan ka gudigelin kor hore waxaan u soo baranay functionka wali waxaan ku joognaa qaybtii functionka ah. functionka waxa uu soo qaybinaa laba qaybood, built-in function iyo user defined function. marka hadda waxaan ku joognaa wali user defined function ku jirnaa. waxaan rabnaa inaan kala barano sidee maanta waxaan qaadanaynaa sidee loogu baasaaba functionka sidee loogu baasaa parameterized. laba qaybood ayaa la isticmaalaa markii la rabo function in parameterized loogu baaso. qaybta hore waa call by value iyo call by reference. okay, call by value iyo call by reference labadaas qaybood ayaa loogu baasaa function markii la rabo parameter in loo baaso. okay, waxaan rabnaa marka program noo muujinayo labadan shay ku shaqeynaya iyadoo loogu baasayo call by value iyo iyadoo loogu baasayo call by references. waxaan qaadanaynaa program kaasoo swap ku sameynayo two numbers. swapping waxa waaye number ku jiro in lagu shubo b kii ku jirona lagu shubo la swaadaarsiyo labada number wixii ku jiro b lagu shubo wixii b ku jirona lagu shubo ayadoo la isticmaalayo call by value iyadoo la isticmaalayo call by reference. marka aan bilaawno barnaamijkeena waxaan soo kicinay DFC++. markaan soo kicino ugu yaraan waxaan sameynaynaa hash include header file-adii baan qoraynaa std input.output.h. okay, declaration waxaan sameynaynaa function prototype waxa loo yaqaan ama function declaration kaasoo ah void swap kan waxa waaye function ka wuxuu function declaration ka sameynayna function swap loo tira ayaan isdhaafin rabnaa. okay, function declaration ku sameynay intimate ayaan sameynayna. okay, waxaan rabnaa inaan sameyno laba variable ayaan sameynayna. laba variable memory ka dhex wareynayna. memory ga ayaa laba position ka qabsanayna a iyo b. waa kan waxaan ku sameynaa asigoo memory ga aan la qabanayo waa kan. okay, main kan joognaa memory position laga qabsado. position ka laga qabsado waa kan position la yiraahdo 1002 qabsana. qaanada hadda wax iguma jiraan. su'aale waxaan ku save gariyay qaanadan hayu qaanada ka haysto oo 1200 ah waxay ugu shubtaa 10 automatically meeshan waxa lagu shubayaa 10 waa ka 1200 meeshan ka qabsaday waxay ugu shubmaa 10. okay, bina asiga waxa ka qabsaday 1400 position ah. position ka marka waxaan ku shubanaa 5. position ka aan ka qabsada bina asigana waxay ugu shubtaa 5. okay, memory laba position ka qabsaday a iyo b. a waxa ku shubtay 5, a waxa ku shubtay 10, b waxa ku shubtay 5. okay, waxaan rabaa inaan swap sameeyo anagoo isticmaalayno call by value. swap aanayna function kan swap la yiraahdo waa function aan hor declaration ka soo shabay. hadda waxaan sameynaynaa function calling a iyo b. waxaan wacnay a iyo b. function ka a meeqo ishida 10, b ne 5. okay, function call waa dhameynay. waxaan galeynaa function definition. markaan galayno sidii void swap muxuu qaadanaa laba parameters int x. sidoo kale memory waxa ka qabsanay position kale loo yaqaano x. position kale loo yaqaano x ayaa ka qabsanay. position kan asigana calling marka sameeyo x kan marka waxa lagu copy gareynayaa x kan waxa si toos loo copy gareynayaa actual parameter ka hore swap marka calling oo inta ka dhaco program kan C language marka la joogo top to down waa program korbo ka imaana line by line u jeegareena intuu soo maray. function calling markuu yiraahdo intaan markuu arko programku wuxuu raadinayaa swap function la yiraahdo. wuu ka soo booday halkan buu soo geli marka maxay iisitaa 10. si toos marka x kaas 10 ka shido copy aan oo soo qaadanaa. marka waa formal parameter ka lagu copy gareena. marka x memory ga meesha ka abuurtay automatically waxaan qaadan memory ga address kiisa si toos u abuurtay. hadda aan ku saalo aan u noqdo meeshana. okay,
address booska memory-gan ka abuurto oo x ah qiimo ma ku shubin qiimaha intaasi toos ugu copy gareey waa ii banaanta tusaale inta x marka dhaho address kan position kan x wixii ugu jiray a wixii ku jiray qiimaheeda inta ugu shub si toos marka 10 inta ku jira inta lagu soo shubay okay inta y hadaan dhahne position cusub memory laga qabta laakiin qiimaha b wadatay ayaa inta lagu shubay marka a waxay wadataa qiimahan ay wadataa 5 a waxay wadataa 10 wixii ku jira inta lagu copy gareeyay x iyada waxay wadataa 10 a na waxay wadataa 10 b waxay wadataa 5 y na waxay wadataa 5 okay waxaa memory ka qabsanay sidoo kale variable la yiraahdo 10 memory-ga sidoo kale waxaan ka abuuranay variable la yiraahdo 10 waa kan asigana address-kiisa yiraahdo 3007 okay 10ka waxa ku shubaa qiimaha x wato x meeqa wadataa 10 kan ka baan soo dhaha waxa ku shubaa halkaan ku shubaa asoo program aan sameeynaa marka okay 10 waxa uu shubtaa marka qiimaha x baa qiiwadatay 10 wixii wadato waxa lagu shubaa 10 x maxaa waay inta aan mar eegno x waa faaruq maadaama ay faaruq tahay aan ka faa'iideysano marka hadda x waxa uu shubtaa y x waxa wixii x oo faaruq y wixii ku jiro x uu shub okay aan sameeyno marka maadaama y wixii ku jiro waxa ugu shubtaa in ka faa'iideysano x waxaan galay 5 x waxa galay 5 okay y waa faaruq y maadaama ay faaruq tahay asigana waxa ku shubtaa 10 muxuu sidaa marka 10 muxuu sidaa asal aragno 10 muxuu sidaa 10 kan qaat asigana waxa ku shubtaa position-keenta memory-geenta saas ayuu program ku shaqeeyaa waa hadda waxa la isku dhaafay swapping la sameeyay swapping to ka dhacay marka wuxuu ka dhacay function-ka gudihiisa outside-ka function-ka ma ka dhacay main-ka shaqo kuma lahan calling bis uu sameeyay main-ka a waxa ku jiro waa 10 b na waxa ku jiro waa 5 swap-ka gudahana dhaafiyay x meeqa ugu jirto 5 laakiin marka hore maxaa lagu copy gareeyay 10 lagu copy gareeyay swapping-ka wuxuu ka dhacay gudaha 10 marka hore lagu copy gareeyay ma wadataa may swapping-ka to ka dhacay marka okay printf after swapping x على من نقطة percentage d y na waxay la mid noqotay percentage d okay kadib waxa wacayna x iyo y okay x iyo y swap-ka marka si toos ah wuxuu ka dhax saameynaa swapping-ka bisoo ka shaqeyn inta a e b lama dhigi karo maxaa yeelay a e b already waxba isma waa a e b da lama swap lagu sameeyo laakiin qiimaha laga soo copy gareystay ee waxa laga soo copy 10 x 10 lagu shubay waana waxa laga soo copy gareystay 5 x e x 10 ay qaadatay waana waxay qaadatay 5 10 e 5 swapping-ku ka dhaca marka sidaas darteed marka programka sidaas ayuu swapping ku sameeyay ayadoo saameyn marka memory-ga qayb kale ayuu ka qaatay position-ka ajwal programka naftirkiisa swapping lagu sameeyo laakiin qayb kale memory-ga duplicate buu sameystay qayb kale ayuu oo position kale ayuu ka qabsaday markaas ayuu wuxuu ka sameeyay swapping waa faana ya rajina swapping .c asla fiirino before swapping intii nuugi saano aragno printf before swapping ay waxa la tahay percentage d t waxa la tahay
percentage d inta xataa ee adhigi kartaa wax problem ku jirto. okay waxaan ka tagnay meeshaas semicolon ka tagnay wax problem kale ma jiraan. wax yar wax qalad ma jiraan laakiin wax yar waxaan u sameynaynaa /n si uu noogu kala cadaadaan laba page noogu kala qaad. okay before swapping a waxa ku jirtay 10 iyo 5. after swapping markii la sameeyay a waxa soo gashay 5 b na waxa soo gashay 10. laakiin swapping intuu ka dhacay swapping gudahan oo ka dhacay inta shaqo kuma lahan a waxay wada tala wadataa. tusaale a waxa ku jirta 10 b na waxa ku jirta a waxa ku jirta 10 b na waxa ku jirta aan aragno a still wixii la ku jira hadaan oo print f a ii daawac hadaan oo wixii la ii daawaca g b stick d com /t a b. waa aragtaa weli waxbaa jiro intaan ku sameyno /n intaan /n aan ku sameyno si noogu kala cadaado. a waxa ku jirto 10 b na waxa ku jirto 5. saa u jeedaan marka hore inta markuu maray waxa la soo daawacay a waxa ku jirto 10 b waxa ku jirto 5. swap ayuu gaar Soomaa swap markuu gaaro programka intuu ayuu u booday inta markuu u booday swap inuu soo sameeyay swap markuu soo sameeyay a waxa lagu shubay 5 b waxa lagu shubay 10 dib ayuu soo laabtay kadib waxa la daawa print f a sideeda waa a waxa ku jirto 10 b waxa ku jirtana 5 laakiin wixii laga copy gareystay ayaa swapping laga sameeyay. taas waxa loo yaqaanaa call by value. qiimihii bas loo yeertay qiimihii baa swapping lagu sameeyay ayadoo kii hore wax effect lagu sameeyay. effect eeda hore sidiisa waa a iyo b 10 iyo 5 ka ku jiro sideeda ugu jiraan wax effect ah kuma dheen. call by value loo yaqaanaa. marka waxaan isla arkaynaa insha Allah taala call by reference. okay call by reference markii la adeegsanayo waxa la adeegsadaa pointer walow aan jabtarka unitka pointer ka la wali gaarin laakiin si hor u dhacaya halkan si aan ugu faahno call by reference markay tahay inta waxaan leenahay asterisk ka ku direena pointer calaamada pointer ah si wax noogu tilmaamto labada dhinacay qaadanayso waxa loo yaqaanaa pointer. okay position aan qabsanay a e b ah a e b aan isla aragno a iyo b position ka qabsanay positionadana waxa ku kala shubnay 10 iyo 20 oo dhigsan kii hore shan wahay. okay a iyo b a waxa noogu jiro 10 b na waxa noogu jiro 20. a addresska boska a taal meeqa way 1002 b na waxa way 1004. okay swap. okay maxaa swap garay addresska a iyo addresska b labada addressadooda ayaa swapping ku sameynaya ayaa origin. okay hadda aan wacna marka float swap. okay maxaa as garayna marka int x inta waxaan leenahay int x int y. okay sidoo kale waxaan soo qaadanay aan program kii. okay
swap qaybteedana iyada waxaa soo qaadan x iyo y ayadana memoryga x aan soo qabsanay intana memoryga y aan soo qabsanay sorry okay x kan iyo soo qaadana x kan waxay ugu shubtaa dhahne addresska ee qiimaha ku jiro addresskiisa waxay ugu shubaysaa markaan copy ma la sameynayo waxaa la soo qaadanayaa addresska addresskiisa meeqa waa kan addresska awal waxaa la copy gareynaa qiimahan hadda qiimo dhan ma copy gareysmo wuxuu soo qaatay address ayuu wuxuu ku shubtay x address waxaa lagu shubtay x sidoo kale y-na sidoo kale waxay soo qaadatay address b maxaa waay address b 20 address ku jiro 20 address ku jiro maxaa waay 20 address ku jiro waa 1004 waxaa lagu shubtay inta awal waxaa la soo qaaday qiimaha la copy gareynaa hadda markaan addresses kana la copy gareystay way fahanaa oo maleynaya qaybta x addresskiisa addresskiisa waxaa lagu copy gareeyay b addresskana la copy gareystay awal markay call by value markay laakiin qiimaha la copy gareeyay marka laakiin addresskan ayaa inta lagu copy gareeyay kana addresskiisa ayaa inta lagu copy gareeyay kadib marka x wuxuu toos u tilmaamayaa qiimahan oo toos u tilmaamaya 20 qiimaha ku jiro tilmaamaya b na wuxuu tilmaamayaa qiimaha 20 ku jiro marka hadda waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo waxaan abuuranaynaa variable la yiraahdo time ka abuuran okay memory waxaan ku abuuranay time okay time-ka maxaan ku shubaynaa marka time-ka waxaan ku shubaynaa x maxaa ugu jiro address ay ugu jiro Soomaa addresskan qiimaha ku jiro ku shubaynaa addresskan ma rabno saa hadaa dhaho time waxay ugu shubtaa x maxay ugu jiro address ay ugu jiro hadaan fiirino time waxay ugu jiro addresska uma baahna marka aan waxaan rabaa qiimo inaan isdhaafiyo address inaan isdhaafiyo ma rabo marka sidaas darteed marka waxaa leenahay bountin aleeyahay qiim addresskan meesha tilmaamayo qiimihiisa igu shub okay addresska intuu tilmaamaya halkan ayuu tilmaamaya halkan qiimaha ku jiro maxaa marka 10 waxa ku shubaa time meeqa ugu jirto marka 10 okay addresska x inta waa mtaqana addresska x waxa waay waa 10 hadii inta lagu jiro inta waa laga diray Soomaa inta 10 kan waa la soo qaaday waxa la geeyay inta la geeyay Soomaa tobanka waa laga soo qaaday inta la geeyay time aan lagu shubo Soomaa hadda marka way banaanta Soomaa addresskeeda qiimaha waa kan x bountin x qiimaha ku jiro tilmaam x addresskeeda bountigeeda maxaa waa faaruq waxa igu shubtaa maxaa ku shubaysaa y maxaa marka y waxa ku jirto 1004 in lagu shubo ma raba may waxaan rabaa 1004 qiimaha ku jiro 1004 waa kan qiimaha ku jiro maxaa 20 okay waxaan leenahay marka bountin waxa ii tilmaamtaa addresska ma rabe qiimaha ku jiro kun addresska waa kan qiimaha ku jiro marka way 1400 igi qiimaha ku jiro 1400 waa kan qiimaha ku jiro 20 kan ii qaad marka waxay ugu shubtaa marka maxaa lagu shubay 20 okay maxaa soo haray time y waxay ugu shubtaa time y igi haddaan dhaho y maxaa ku jiro marka 1400 igu shub
4 address waxa lagu shubaa qiimo qalad ayay noqonaysaa tartan marka waxa leeyahay y boontigeeda meesha tilmaamayso y-da intay tilmaamay 1400 ee tilmaamay position keedana way banaanta marka sidaas darteed marka waxa dhahaya y boontin meesha tilmaamayso waxay ugu shubtaa 10 sidaas darteed inta qiimaha tilmaamayso ma qaba meeshaas waxa ku shubaa 10 sorry 20 waa leeyahay temka waa kan temka soo qaad 10 ka soo qaad waxa ku shubtaa bigas tanka meeshaas sida loogu shubo markaan waxaa la isdhaafsiiyay marka annagoo meelna copy gareyn waxaan copy gareysana bis by address aan ku xalin qiimihii sidiisa 10 iyo 20 isla qiimihii exactly waxaan ku sameynay swapping ana aragno marka swapping marka labada dhinac oo ka dhaxaa printf a equal percentage d slash t b equal percentage d slash t a comma b okay intana aan fiirino printf a equal percentage d slash t equal percentage d slash t into b before swapping it. So hard. After swapping heavy, and then after swapping the intent, swapping inta manayso waxa ay tilmaamtaa qiimaha ku jiro intana as3 y I'm sorry saa u jeedno before swapping a waxa ku jirtay 10 b-na 20 after swapping markii la sameeyay a ma ku jirto 20 b-na 10 sidoo kale after swapping intana way sameeyay labada dhinac way sameeyay marka a waxa ku jirto 20 b-na 10 a 20 b 10 labada dhinac swapping waa ka dhacay marka waxa la call by reference marka waxa la isweydiisay addressyada ku jirto ayaa addresska ala soo qaaday kadib أجمل بارامترك وحلو سميه سوابين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.